بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام الله إذن حفظيه هنا إذن بركة عمرقين وقتقين إيوه نرشي نبا ميلك السودويدة كجبتان وعشر كان سديدات تفسير كي سورة النمل إنه سو سعودي ما أنت وحو كبلا يا عشر كينا قول كربنا سبحانه وتعالى يعني آية أفري صدنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قالت قبردي بلقيس وحي تري إن الملوك بقرضوا إذا قرت دخلوا أي سوقلان قرية دقمها دي سوقلان أفسدوها ويفسها دنيا وجعلوا وحين كياليان أعزة أهلها دقمذا إهل كيذا كود عزق إسكاله أذلة كود ليسني كيالان وكذلك سذا سانا يفعلون أي سمين ينكوانيتو وإني أنيقو مرسلة تؤدريسان نقونيا إليهم حقوذا بهدية أدري دونا فناظرة وحا نفيرنيا أنسوغيا بما وحا يرجع إلى صون قنيو المرسلون كوان دري وأخباره فلما قورت جاء أويمت إرقدي بالقصة أي صودرتي سليمان مركو أويمت أي قال وحر سليمان أتمدونني وحا ذي كورنيسان بمال ميادي كورنيسان فما آتاني الله سيقو وحو الله إسيي أنيقا خير وكخير بدينهي مما وحا حقي آتاكم إذنك الذين سيي بل اسكبر دافي أنتم إذنك بهديتكم هديدينو أي تفرحون كفر حيسان ارجع نقو إليهم حقو أنقو فلنأتينهم والله وحن أولا إيمانينا بجنود عيدا لا قبل كؤاد أيسان أولهين لهم إيقو إسم كؤادي كريم ولا نخرجنهم واللوان بحنينا ونكب بحنينا منها مقالة أي دقين السبع أذلة أيقو دليسن وهم أيقو ولي بالصاغرين الليته قال مركز سوري سليمان أيها الملأ أخيارتي أيكم كانيبا يأتيني كانيو إلى إيماني بعرشها قبردا حفيز كذي عرش قديا كانيو قبل أن يأتوني انت سن إيمان مسلمين أيقو إسديبيه جانسن وحن كسو جرني أرنتي هدهد كأخبار تيدو كاني إني رمودي
oo dadkii warqaddii uu u geeyey hudhud warqaddii markay akhristeen ay arkeenna ay aada uga argagaxeen. waxaa ka argagixiyey warqadda yacni khaatimkeedii ama naqshadeedii ama timbiraheeda iyo warka go-an ku yilay oo aadna u kooban: anlaa tacluu calaya wa'tuunii muslimiin. awalna uu ka horeeyo bismi illaahi araxmaani araxiim. waxay ogaadeen cidda akhbaartan ay ka timid inuu yahay cid diineed inay tahay. arrinta markay diin lugaha la gashana arrinteedii way cuslaanaysaa. lan diin markii la yidhaahdo waa dad rabbi la socdo jalla wacala, alla soo dirsaday, awood ballaaran iska leh oon lagu aadi karin. arrintaa markuu nabiyullaahi suleymaan calayhi salaam uu yacni u diray hudhudna akhbaartii uu soo dhegaystay, dabcan wuxuu keenay akhbaar ah dadkan inay erga soo diri doonaan, inay ergo soo diri doonaan. lan dhegaysaa la yidhi. dhegaysigii aan ku jirnaa, hudhudkii wax uu dhegaysto uu suleymaan ula aado ayaa meeshaan ka bilaabanaya. gabadhii markay isugu yeertay baarlamaankii, dadkii talada ay ka go-aysay oy la tashatay, ayadana akhbaar ay u soo jeediyeen, ayaa waxay tiri oo awooddoodii ay ogaatay inay diyaar ula yihiin inay la garab taagan yihiin mamlakadoodii, boqoradoodii, inay difaaci doonaan si kastoy arrin noqoto. markay ogaatay amarkeedii inay ku taagan yihiin ayay hadalkan u soo jeedisay. subxaan allah. gabadhan caqligeedii aayaadkaanan ka garanayna alla uu noogaga warbixinayo. qaalad waxay tiri markay ogaatay war inaysan ku soo celinaynin oo waxa iyada markaa ay go-aansato ay ku dhaqaaqayaan, siday ayaga yidhahdeen fanduri maada ta'muriina, bal ka fiirso arrinkaaga, waxaad amar ku bixinaysa. anaga diyaaraan u nahay wax kastood na amarto, wax walba. ayay qaalad tiri ina almuluuka boqoradu idaa dakhaluu, marka khibrada iyo cajaa'ibta gabadhan rarfiiri ay leedahay. ina almuluuka boqorada idaa dakhaluu hadday galaan qaryatan degmo hadday galaan oy xoog ku soo galaan, sida dabeecada waayadaa jirtay waa, afsaduuha way fasahaadinayaan. maxay ka wada way fasahaadinayeen? way burburinayaan. meel lagu dagaalamay ciddii guulaysataba, xataa dadkii meesha deganaa ha guulaysteen, meesha qaraaba ka dhacayo fasahaad, waxaa dhimanayo, waxaa burburayo, hantiyaa baaba-ayso, dhibaa ka dhacaya. waxay leedahay afsaduuha way fasahaadinayaan oo magaalada iyo degmaday soo galaan way burburinayaan. kow horta dhulkii saasay u galayaan, ee dhisnaa ee camirna. wa jacaluu waxayna ka yeelayaan acizata ahliha, degmada ama magaalada ay soo galeen dadkeedii madaxda ahaa ee ciziga iska lahaana markay gacanta ku dhigaan adillatan kuwa dulaysanay ka dhigaan. dadweynaha ayaga dad loo talinayo weeyaan, guryihiina ku noqda hogaansamaa la leeyahay. amaa madaxda waa la dulaysanaya, xabsi iyo dil ayaa laga buuxinaya ayagoo laga cabsanayo inay wax soo abaabulaan. horta taa ogaaday tiri. wakadaalika sidaa oo kalayna yafcaluuna kuwaanna samaynayaan. haddayba soo galaan magaaladan sidaasoo kaley samayn doonaan. anaga awooddeena waan ogaanay heerka ay maraydo, laakiin anaga ayaga awooddoodii ma ogin. warka ka yimidna war sahlan ma ahan. warka uu soo diray ninkan war nin aada u xoog badan uu ku hadlo weeyaan, ama warqadiis waxa ku qoran kelmad kooban, allah magaciisa ku qoran. waxay tiri wa innii anigu mursilatun tudiraysaan ahay, waxaan u diri doonaa ilayhim xaggooda kuwa bihadiyatin hadiyan u diri doonaa, oon ku kala hubsanayo
waxa ay yihiin waa nin boqoreeda adduun doon ah ma nin xag alla ka socdaa haddiian u diri doonaa on ku kala hubsanayo hadduu reer adduun yahay isla markii wuu dafi doonaa hadiyadaas waa ku qanci doonaa arrinteennana waa ka tashan doonaa hadduu hadiyadaas soo diidana waa ninaan adduun u soconin tabar uma hayno waa ka tashanaynaa iyadana laakiin hadiyadan u diri doonaa wa innii anigu mursilatun tu u diraysaan ahay ilayhim xaggooda bihadiyatin hadiyadan u diri doonaa fanaadiratun waxaan sugayaa bima waxa yarjicu u la soo noqdo almursaluuna kuwa aan dirayo waxay jawaab ii keenaan ayaan sugayaa markaasaan go-aan ka gaari doona waxa aan samaynayno ka warama dabcan arrintii laysu waafaqay waxay dirtay balqisa oy diyaarisay hadiyad aad qiimaheedu uu u sariyo qofkay u dirayso waa qofay ka cabsanayso hadiyad yar uma dirayso waa qofay rabta inay ogaato awooddiisa intay la eg tahay hadiyad aad u qiimo badanay u dirtay hadiyadii waxay socotaba kolley nabi suleymaan akhbaartaas intaa oo dhan hududka wuu dhegaysanayaa wuu baxay nabi suleymaan uu aaday tabcan wuxuu u sheegay in ciidan oo hadiyad wada ay soo socdaan hadiyad qiimo badan nabi suleymaan asigana wuu isdiyaar garaynaya yemen ilaa shaam waxaa loo socdaa bilna waa looga soo noqdaa masaafada ma sahlana hudhud wuu duulay akhbaartiyuu geeyey dabcan nabiyullaahi suleymaan jin iyo dad iyo shimbira u adeega maxaad malaysan lahayd sida loo xardhayo loo nadaaminayo wafdigaas meesha lagu soo dhaweynayo si indhahoodii naftoodaba loo sarcaadiyo intay hadiyadba keeninba ama hadiyadooda aysan la weynaanin waxay soo socdaanba falamaa goorta jaa uu yimid wafdigii balqisa ay soo dirtay suleymaan markay u yimaadeen oo iska og suleymaan waxa ay la soo socdaan hudhudka akhbaar u keenay ayaa qaala wuxuu yidhi atumidduunani markii la sheekaystay oo la fariistay atumidduunani ma waxaad igu kordhinaysaan bimaalin maal ma maalaad ii keenteen anigoo maal qabo oon waxba u baahnayn ziyaado miyaan ka dhiganayaa waa qofaan baahnayn lan marka weel ka buuxo waxa lagu daro ziyaado waayo ee wax lagu dhamaystiray ma ah wuxuu leeyahay aniga waxa aan duun waa ii dhamaystiran yahay ma ziyaadaad ii keenteen famaa waxa aataaniya allaahu siduu u hadlay bal fiiri iimaanka famaa waxa aataaniya allaahu alla uu isiiyey aniga ayaa khayrun ka khayr badan oo ah nebinimo risaalo diin adduun waxa aniga alla uu isiiyey ayaa wuxuu ka khayr badan yahay mimaa waxa aataakum idinka laydiin siiyey oo adduun keliya ah bal iskaba dhaafe hadiyad antum idinku bihadiyatikum hadiyadiinu aad tafraxuuna ku farxaysaana wax weyn uu idinla yahay adduunkaana idinka wax weyn uu idinla yahay isleedihiin haddaad u geysaan wuu qanci doonaa anigana diinan u socdaa shirkigaasaan u socdaa inaan baabi'iyo ood ku jirtaan idinkan adduunaad iila timaadeen oo isleedihiin wuu ku farxi doonaa irjic noqda ama irjic noqo ergadii ku yiri cidda madaxda u ahayd irjic noqo ilayhim u noqo ayaga cidda ku soo dirsatay u noqo oreersaba wayaan kow waxaad nuu sheegtaa falana'tiyannahum walle waan u imaanaynaa inay noo yimaadaan soo ma diidin falana'tiyannahum walle waan u imaanaynaa bijunuudin ciidan ayaan ula imaan doonaa ciidankaasoo laa qibala ay laa taaqata awood lahum ayaga aysan u haynin ciidan aysan awood u haynin aysan ku aadi karin ayaan ula imaan doonaa biha iyada ama ciidanka ayaan u keeni doonaa bijunuudin ciidan laa qibala awood lahum ayaga aysan u haynin biha ciidanka ayaan ula imaan doonaa kow walanukhrijannahum walle waan bixinaynaa oon bixinaynaa minhaa magaaladaas baan ka soo bixin doonaa adillatan ayagoo dulaysan
ayaan soo bixin doonaa oo daliiliin ah. wahum iyagoo weliba saagiriina liita oo qaxooti ah ayaan ka soo saari doonaa magaalada Saba. taa u sheega orda la noqdo hadiyadiin. aniga imaadan idin iri idin ma dhihin maal ii keena. wafdigii cagahay wax ka dayeen kolle intay meesha joogeen jinni booday iyo wax meesha isdhexyaacay way arkeen iyo maal aan caadi ahayn iyo dad iyo shimbir meesha duulaya way baxeen. wuxuu yaqiiniyey nabiyullaahi Suleymaan inay imaan doonaan lianna akhbaara loo geyn doonaa aysan la soo fadhin karin. qaala markaasuu nabiyullaahi Suleymaan calayhi salaam lan wuxuu yidhi inay imaadaan ama inaan u imaano oon soo dulayno dagaal aan uga saarno magaaladooda. ciidankan markii looga warbixiyana qofka asigaaba habeenkii hurda ka soo dhacayninba. qaala markaasuu nabiyullaahi Suleymaan yaa ayuha almala'u akhyaari asigana baarlamaankiisa u yeertay dadkii talada ay ka go'aysay madaxdii ahludiinkii akhyaartii u yeeray oo jinni insigaba wuxuu yaa ayuha almala'u. qaala wuxuu Suleymaan yaa ayuha almala'u akhyaartiyey ayukum kiineeba ya'tiinii ila imaanayo bicarshiha gabadhaas sariirteed yaa ii keeni doona qabla an ya'tuunii intaysan ii imaanin ka hor muslimiina ayagoo isdhiibayo hoggaansan si indhasarcaadintoodii iyo argagixintoodii loo siyaadiyo ayna isu dhiibaan si fiican. yaa carshigeeda ii keenayo intaysan imaanin ayagoo hoggaansan. maantana casharka intaa haynoo joogo wallahu aclam.